بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan idiin sharaxo normal distribution iyo maxay kala duwan yihiin skewness iyo kurtosis. waa saddex graaf oo graafka la sameeyay kamid ah oo ugu muhiimsan hadhow laga yaabo markii daatada ku soo bandhigto inay kaaga baahdo sharaxaad gooni ah. daata kaste oo la cabiro sidaan soo sheegnay waxay ku base garaysan tahay normal shape oo noocan ah. startiga waa yar tahay indhigana uu yaryahay ama sida u taqaan inta waa positive side dhinacana waa negative side. taas waxaa loo yaqaanaa normal distribution waxayna ka kooban tahay plus 3 and minus 3 dhinacana waa 1 iyo 2 iyo 3 oo plus ah 1 iyo 2 iyo 3 oo minus ah dhinacan kale. nooca labaad aan u baahanahay inaan sharaxo waxaa lagu magacaabaa skewness. waa labadan nooc waxay u dhici kartaa laba xaalo in normal shape-kii ay ka wareegsato way aado dhinaca positive-ka inta uu noqdo dhinaca negative-kana oo high data ay noqoto. nooca waxaa loo yaqaanaa positive skewness lahaa waxaa loo yaqaanaa positive skewness. dhinaca kale negative skewness lahaa dhinaca negative-ka ay ka wareegtay waxay u wareegtay dhinaca positive-ka. labadaas xaalo way dhacdaa haddii graafka noocan yahay la soco waxaa lagu magacaabaa skewness. ma aha daatadaada mid saxsan waxay taallaa ama leftiga oo markay lefti taalo waa marka aan leenahay positive skewness markay right taalana waa marka aan leenahay negative skewness. qodobka saddexaad u baahan inaan sharaxno waxaa ka mid ah waxaa lagu magacaabo kurtosis oo ka mid ah graphics-ka markii la soo muujinayo. markii normal shape ay tahay oo normal distribution ama normal kurtosis waxaa loo yaqaanaa mesokurtosis waxay ka samaysan tahay plus 3 minus 3. laakiin markii laba xaalo ka duwan taas ay tahay waa tan oo kale markay jiifato graafka uu flat noqdo flat graph allah. flat graafka waxaa loo yaqaanaa magaca kale kurtiga allah ama blat kurtosis allah. wuxuu leeyahay markaas wax ka yar 3. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa leptokurtosis waa big bartii dhexe ayuu ka saramaray aad u saramaray labada dhinac way ka banaan tahay waxaa loo yaqaanaa big inuu noqdo graph ama kan waxaa loo yaqaanaa flat graph. kan meeshuu la ekaa less than 3 kan wuxuu la egahay greater than 3 noocaas ay isticmaalaan. marka farqiga u dhexeeya waxay ku xiran tahay marka daatada nooca u soo bandhigtay marka aad iskaga fiir insha Allah mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.